السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka qaadanaa markii hore root between failures la isticmaalay buu ahaa laakiin waxa la isticmaalay router imkana switch layer 3 baa la isticmaalay marka sida noogu soo baxdid switchka aga halkan ka soo saaro switchkii markii aad switchka ku dhufatay waa kuwaas layer 3 marka sida soo dhigtid wuxuu leeyahay fast internet kuwiyo kale uu leeyahay electricodio kale inta sida tirayado kale adeegtid wuxuu leeyahay 1 iyo 2 kaasi ka shaqeyn ilaa 24 giga internet 01 iyo 2 marka su'aashiina koobaad waa maxay fiilan koob iyo konton ka geli oo 10.1.1 wax lagu yiri create fiilan koob iyo konton way aan fiilan koob iyo konton fiilan laba iyo konton baa kulli u jeeda mgt u qor portiskana geli marka xorana asoo CLI no one enable configure terminal on interface may fiilan kan sameyno fiilan koob iyo konton ninkiisa AWC oo fiilan laba iyo konton ninkiisa mgub exit interface faster 0/1 waxaan gelinaa switch port modekiisa access igadi switch port access fiilan koob iyo konton exit modern hadana interface fast internet 0/2 switch port modekiisa access igadi switch port access fiilan laba iyo konton hadana dhahno show fiilan arkaysa AC oo fiilan koob iyo konton fast internet 0/1 ba ku jira oo waa kan fast internet 0/1 fast internet 0/2 waa kan marka fiilan koob iyo konton way portiskina aan gelgelinay su'aasha saddexaad waa maxay configure layer 3 switch design the SVI should have the first IP address on each subnet marka horta IP address ka soo siino computerada IP address ka soo siino desktop oransa desktop marka tira IP configuration box ita oransa marka 10.1.2 255.255.255.0 kana laptopka click marka siisid desktop ba ka dooranaysa IP configuration 10.1.2 255.255.255.0 marka sida tahay default gateway-gana waan ka tagaynaa hadaba marka sida tahay waa configure terminal yaran islama hadli karaan ninka kan iyo kan islama hadli karaan way waa kala laba fiilan aan eegno tan raabin 10.1.2 islama hadli karaan tan ku noqono request timeout kii koobaad mid labaad aan eegno okay isla hadli karaan hadaba waxa lagu yiri configure layer 3 switch configure garee marka waxaan IP routing balance oo layer 3 waad ka dhigaysaa kan isagoo layer 3 imka layer 2 buu layer 3 waan ka dhignaa hadaba interface fiilanadii waan galnaa fiilan laba iyo konton fiilan koob iyo konton aan galno IP address baan soo siinaa IP address ayaan soo siinaa abuyaan IP address 10.1.255.1 255.255.255.0 enter IP address kaas waa default gateway buu noqonayaa kan waxaan ku default gateway ayuu noqonayaa
way fiilan koob iyo konton buu ku jiraa way exit interface fiilan laba iyo konton ip address waxaan odhanaa 10.1.255.1 255.255.255.0 kanna ip addresskaasi waa kii default gateway-ga u noqonay kan kan way haddaan eegna haddaba show ip route haddaan idhaahno waa arkaysaa wax ku xidhan koob iyo konton iyo laba iyo konton iminka isla hadli karaan haddaan kan bin garayno kii kale aan eegno inuu bin garaysmayo tii koowaad oo kaas uu bin garaysmay aragtaa uu bin garaysmay reply from waa la soo jawaabay ka u soo jawaabay su-aashiina ugu dambaysa the computer fiilan koob iyo konton should be able bin fiilan laba iyo konton waa taas noo samaynay oo kan waa kii inoo bin garaysmay kan kalena aan eegno inuu bin garaysmay uu bin garaysmay kaa kalaa markaas oo bin garayn ana bin 10.1.2 koob iyo konton dhibic 2 bin garaysmay oo kaa reply from. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.